والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. marka hore subax wanaagsan saxaafadda waan salaamaynaa salaanta islaamkaana ku salaamaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. marka xiga waxaan u mahadnaqaynaa dhammaan shacab weynaha Somaliland ee 13 Noofambar xuquuqdooda dastuuriga qaatay ee codeeyay codayn xor ahayd oo ay u soo banbaxeen sidii ay ugu dul qaateen ee u codeeyeen waan uga mahadnaqaynaa. ilaahay baa mahad leh subxaanahu wa ta'aala, isagay mahadoo dhani u dhan tahay. ilaahay nagu ilhaamiyey inaynu maanta qaranka Somaliland uu taagan yahay meel wanaagsan. waxaan maanta iclaaminaynaa gudoomiye Cabdiraxmaan musharaxa xisbiga wadani iyo aniguba waxaanu ka soo baxnay shir noo socday 2 maalmood. waxaanu u wargelinaynaa shacab weynahana u sheegaynaa inuu nagu soo dhammaaday jawi walaalnimo saaxiibnimo oo run ahaantii si wanaagsan aanu isugu afgarannay qodobadii aanu ka wada hadlaynay. waxaan u mahadnaqayaa gudoomiye Cabdiraxmaan oo leh jeclo badan ka leh qarankan, turaalana u sameeyey qarankan, ahna mudan inaynu ku wada ixtiraamno meeqaamku taagan yahay. haddaanu nahay komishinka qaranka Somaliland waxaan uga mahadnaqaynaa shirkii aanu wada galnay 2 maalmood siduu noogu dul qaatay, siday ka muuqatay naxariista iyo turaalaha uu u turayo dalkan iyo dadkanba. si degan waayo aragnimo leh ayuu Cabdiraxmaan gudoomiyaha murashax Cabdiraxmaan noola qaatay arrimihii aananu maxayda u falanqaynay go'aana ku gaadhnay. aan buuggii degmada Berbera ee ahaa buuggii codaynta waanu ka shaafinay, waananu isla qaadanay, waananu ka heshiinay, waananu u sharaxnay, waanayna la qaateen gudoomiyaha iyo madaxdii qiimaha lahayd ee la socotayba. waxaanu kaloo ku heshiinay inay tirintii gobolka Maroodijeex khaas ahaan degmada Gabiley iyo degmada Hargeysa ay sidoodii u socdaan. taana waanu isla qaadanay, shaqadiina way noo soconaysaa. sidaasaananu dadweynaha iyo shacabkaba ku wargelinaynaa. waanad mahadsantihiin. gudoomiye ku soo dhawow. waan salaamaya dhammaan shacbiga Somaliland. waxaa ka warqabteen in xisbiga wadani uu sheegay shacabka in wada shaqayntii iyo muraaqibiintii ka joogtay ama howlwadeennadii ka joogay xisbiga komishinka qaranka ay joojiyeen, isagoo markaa tabanaya cabashooyin iyo codsiyo u soo gudbiyey komishinka qaranka inaan jawaab shaafiya laga siinin. saa daraaddeed komishinka waa wada hadlaynay 2 cisho soo socday. waan u mahadnaqaynaa runtii dulqaadka ay muujiyeen. waxaanu isla garannay oo ku soo gunaanadnay in la dhegaysto dalabyadii iyo codsiyadii xisbiga ee ku saabsanaa doorashada guud ahaan gobolka
marojeex degmooyinka gabiley iyo degmada hargeysaba dalab kaya ku saabsan gobollada kalena in qoraal ahaan aanu ku gudbinay insha allahu jawaabna aanu ka sugi doono commissionka haddii ilaahay ka dhigo waxaanu isla garanay inaanu soo celinno si loo sii wado tirada guud ee gobolka maroodijeex labada degmaba degmada gabiley iyo degmada hargeysaba waxaa kaloo dee saa ka warqabtaan arrinta ku saabsan buugga wuxuu ahaa buug soo galay gacanta xisbiga shacbigana aanu soo bandhignay commissionku maalintii dee jawaabtay bixiyeenna waa ogeydeen laakiin waxay caddeeyeen in buuggaasi uu ka mid ahaa buugaagtii iyagu ay lahaayeen ee ay ugu tala galeen doorashada waxaan u mahadnaqayaa waxaan u sheegayaa uun dhammaan taageerayaasha xisbiga in codsiyadii commissionku ay aqireen inay tixgelinayaan hadday tahay maroodijeex iyo hadday tahay guud ahaanba dalka waanu u mahadnaqaynaa taageerasheeda waxaanu siyaasaanu ku wargelinaynaa dhammaan taageerayaasha xisbiga haddii ilaahay ka dhigo taa hargeysana waa la bilaabayaa kuwa kalena jawaabtii iyo tixgelintii waanu ka sugaynaa sida ugu dhaqsaha badan commissionka haddii ilaahay ka dhigo aad iyo aad ba umahadsan tihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi barakatu mahadsantihiin